عشان والقدر قرر وقفني يمينك مو قراري هذا حكم القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دمانتين ملبوت joogtiin janaalkeena ku xiran. maanta waxaan idiin wadaa insha Allah pizza sida loo sameeyo. waxay ka kooban tahay insha Allah taala ka sameyn doona inta waxay ku jiro qamiir iyo burkaas oo blank ah iyo intana waxay ku jiro wax yar oo cusbe iyo wax yar oo sokor insha Allah. intana waxay ku jiro qaado iyo bar saliid ah iyo biyo xagana biyo qandaca ay ku jiro insha Allah taala. cajiinkii aan sameysanaynaa inkan waa caagii aan maaragtay ugu talagalay inaan ku qasto insha Allah. aniga waxaan sameysan doonaa hal koob wax weyn ma rabo, pizza yariis aan rabaa insha Allah taala. marka waa kaas adiga cabirkaagiisa u sameysanaysid waa kulli ada cabiro, laakiin aniga insha Allah taala in yariis ay tusaayo oo simple haduu Ilaahay yiraahdo. I hope inaad ka faa'iideyn doontaan insha Allah taala. soo dhawaada meel walba joogtiin dadka nagu xiran dhamaantiin. ما شاء الله halka qamiir burkii hadda oo qamiir laanta ayaan ku shubo. hadana waxaan ku shubayaa qamiir sidii waaye waa leebto qof walba sidii uu yaqaano leebta miisti waaye. marka dhamaanteedaan ku shubtay insha Allah taala. ayadaasna waa qaadada yar cusbada iyo sokorta aad ku shubayaa insha Allah. sokorta sokor aad u badan oo macaankeeda laga dhaminayo maahan, laakiin wax yar adiga oo maaragtay yariiso ma sha Allah. sabaayada qatar ka dhiga waa sabaayadna aan dhihin pizza insha Allah. sabaayadna insha Allah waa idin soo geli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. It's my favorite. marka ma sha Allah saliidi aan hadda ku daray biyahana waa biyo qandaca waaye. waxaan rabaa inay qamiir sidaas si fiican ay maaragtay igu soo qamirto cajiinka aan ku qaso. marka insha Allah biyo qabow ku qasin, biyo qandiira mar walba cajiinka qasanaysid. bur oo rabtid inaad maaragtay pizza ka sameysid ama wax kaleeto, biyaha qandiirka is fast dhaqso maaragtay ku soo qamiiraya insha Allah. intay noo sii qamiireysana pizzada wixii aan ku sameysan lahayn oo maaragtay suugadii wixii aan korka ka saari lahayn oo ama aan ku carfi lahayn ama ku sharxi lahayn insha Allah soo diyaarsan doono haduu Ilaahay yiraahdo. laakiin marka hore cajiinkan meel saarayna biidmillaah albaari. soo dhawaada dhamaan intay ugu xiran ma sha Allah. waxaan rajeynayaa zaid uga faa'iideysan doontaan. waxa waaye pizzada guriga lagu sameysto ma sha Allah. gacantaada wax ka macaan ba mala sooma mid banaanka laga sameeyo wallahi xaba kama bariyayso midaan hadda aragtaan ama aad tijaabisiin insha Allah taala. pizza baan caadi ahayn waa cawada sawaayada afkayga ka dhamaan la'aan ma sha Allah. cajiinkan si fiican u soo qosaya si fiican inaa u xashto si fiican isku dhex gelisid si fiican. cajiin mar hadduu ka halaabo xashida ka halaabo ma ku fiicnaanayo. must wax walba in si fiican maaragtay loo xasho. haddaad pizza sameynaysid, haddaad sawaayad sameynaysid, haddaad maaragtay bur mandaas sameynaysid, bur kasta wuxuu rabaa inaad si fiican gacanta ugu xashtid oo maaragtay si fiican isku dhex gelisid. adigana wax fiican kaaga soo baxayo ugu dambeyn insha Allah. marka waa kaas haddana meeshii aan maaragtay ku xashanayaan tirtiranaya. marka haddana xash kale u celinaya insha Allah. si fiican u xasha insha Allah. waliba hadda intaan maahane in ka badan in la xasho ayaa maaragtay ay aad u fiican tahay, waliba aad loo sii xasho. laakiin ani maadaama hadda wax yarna ay tahay wax yar kadibna rabo inaan dubo intaana maaragtay iga badanba wax zaid u badan ma u jeedin wax yar waa intaas oo maaragtay gacanteydaba la eg hal mar leema fidi rabaa iyada dhanba oo dubi rabaa insha Allah taala. marka inta badan xashid badan kolaysi haduu Ilaahay yiraahdo sawaayada. saliid yariisaan si fiican rabaa inaan ugu sii xasho insha Allah taala. saliida waxa waaye inaad ku qastidna ku fiican tahay
inaa ku xashtid way ku fiican tahay, waayo waxay noqonaysaa biitsadaas waxay noqonaysaa biitso oo maasha Allah aan qalalnayn oo yacni cajiin hadhowdi markay dubanto wax qalalan ayna noqonin, ilaa waxay noqonaysaa kind of muufo camal ay noqonaysaa moogta. marka wax jilcan oo maaragtay qoyan inay yacni qoyaanna maa laakiin adiga wax duxaaya inay kuu noqoto waxaan u malaynaa inaad fahmi doontiin insha Allah. biitsada wax yar oo adiga duxaaya maasha Allah ay noqonaysaa. marka meeshaasaan ku xirtay bahashaas yaraan ku duubay oo maaragtay neefta inaan maaragtay ku celiyaan rabaa oo ay iisoo qamiirto insha Allah. intaas yariista waxaan rabaa baaquliga adiga haafkiis inuu soo noqdo intaan diyaarsanayo suugadeydii waxyaabahayga insha Allah tacaala. la socod wanaagsan qudaartana haddaan bilaabanaa. halkan waxaa iigu jiro barbarooni jaalle ah, xabad basal ah iyo 2 xabo tuun ah, maraq digaaga iyo xawaajiyaasha gaduudan iskugu kala jiro iyo maaragtay yaanyada shiidan oo diyaarsan. yaanyada basta sauce-ka caadiga waaye, yaanyadaas way shiidan tahay, herb iyo waxbaa ku shiidan, adiga qudaar cagaaran iyo waxbaa lagu shiiday. marka yaanyada caadiga fresh mida rabta adiga ka samaysan kartaa, laakiin badanaa yaanyooyinka shiidan oo dhalooyin ku jira badanaa laga samaystaa biitsada. marka la socod wanaagsan asxaabtayda qaaliga, soo dhawaada inta nagu soo cusub maalmahan oo dhan maasha Allah. soo dhawaadaan le inta kale oo maaragtay nagu soo biiri doontana kusoo dhawaada janaalkiina. janaalkan waa janaalkiina, ka faa'iidaysta insha Allah tacaala. anigana waxaan diyaar u ahay, waxaan aqaan inaan idinla sheer garay asxaabtayda iyo familkeyga dhammaan inta ku xiran janaalkeyga insha Allah tacaala. hala kala faa'iidaysta leen waa maahano maasha Allah. markii yaanyadii qudaartii wixii dhan isku shiidaya, dhalooyinka ayadu ku jirto yaanyo oo karsan maahan, dabcan yaanyo ceyriin ah. soo haddana dibaan rabaa inaan u kariyo markaan isku shiido insha Allah. basasheydii waxayga dhan intii carfisadeydii waxayga dhan intii igu jireen soo ma. marka inta hadda waxaa iskugu geynayaa saliidaas yariista iyo qudaar alaabtan aan isku soo shiitay iyo wax yar oo adiga maraq digaaga iyo carfisada xawaajiyaasha gaduudka ah. intaasaa isku soo qalaynaa, si fiican isugu soo habeynaa, kadibna maasha Allah biitsadeena iyadoo noo qamiirtay intaan fidsanno insha Allah. alaabtan isku dheelitirno suugadahan kor kaga saari doona insha Allah. waxa waaye biitsa sauce-ki waaye tanne. marka maasha Allah biitsada diyaarsan oo biitsa sauce-ka diyaarsan oo meelaha lagu gado mar walba aniga waxa ka fiican waxa ah mar walba samaysato oo gacantaada ku samaysato, sida aniga aan isleeyahay. waxa diyaarsan waxa ka wanaagsan waxa adiga gacantaada ku samaystid. marka suugada mar walba oo biitsada aad ku samaynaysid sidaan u samaysay insha Allah tacaala. marka digsigan waxay rodaynaa 10 daqiiqo ay soo bislaato insha Allah tacaala. haddana waa noo diyaar waa alaabteen. waa suugo yar oo isku imaateen noqotay, xoogoo yar hadaayatid iska dareemi karteen wax yar oo biyahay ahayd, laakiin hadda waa kaasaa maasha Allah. biyo dhanna ma ku darin, yaanyada iyo qudaarta bas isku shiito, wax biyaha dhan kuma sameyn marka horena. haddana maasha Allah way isku timid, wax yar oo kooban ay noqotay. dibkaan ka damisanaa, meel yaraan ku shubanayaa, saasay suugadina diyaar noogu tahay insha Allah oo aan isticmaali lahayn. suugada waxaa la rabaa inay sidaas noqoto, ayna waxba ku jirin, basal ku jirin, wax kale ku jirin, wax walba inay saa u shiidan yihiin. adin alaab oo maasha Allah isku smooth ah. halkaasna waxaan kusoo shiitay jiisan kusoo maaragtay xoqay. marka insha Allah jiiska diyaarsan aad waa isticmaali kartaa, dhib ma jiro. halkaana waxaa igu jiro salaami, hilibkan waxaa lahaa salaami, hilib yariis oo maaragtay biitsada loogu talagalay waa insha Allah aan kor ka saari doono. halkaas yaanyo yaryar ay igu jirto iyo barbarooni cagaaran iyo olyolive. intaasna waa intii aan maaragtay ku kor carfin lahayn oo aan ku dubi lahayn, waan inoo sharaxaad insha Allah. intaanan hadda haystaa intaanan ku samaysanaya, laakiin adiga ka badan hadda haysto qudaar ah waa dul saaran kartaa biidhnillah. saxankan waa saxankii aan maaragtay ku duban lahaay. saxanka oda hadda ma haysto, laakiin saxanka ovenka waxyaabaha aan ku dubtaa hadda ku samaysana insha Allah. biitsa oo zaid saas u weyn maaha, laakiin in yaro adiga saxankaas la siman aan insha Allah tacaala ka dhigi doonaa cajiinkeyga insha Allah. marka hadda neeftan ka bixinaya, waxaan sameynayaa waana soo fidinaa insha Allah tacaala. hal xabo bas aan ka rabaa aniga, laakiin daartu adiga waa yareyn kartaa oo maaragtay 4 ilaa 5 cad waa ka dhigan kartaa yariis biitsa yaryar.
haddaa rabtid biidsada burka intaa badsatid biidsa weyn maaragtay saxankeedana haysid waa samaysan kartaa maasha allah. tan laakiin aniga aan sameynayo yariisna maahan weynina maaha, waa medium size aan dhihi karaa aniga. kaamirada ayaa meel saaranaya, ka raali ahaada. haddana waxaan ku bilaabay inaan maaragtay idin tuso sidii aan u fidin lahay. fidiska waxaa la rabaa inayna biidsada si qafiif aadan u fidinin, waayo haddaad si qafiif u fidisid burka hadhowdii marka uu dumo wuxuu kaa noqonayaa qababac qababac, muufo oo bush bush kuu noqonayso. marka sida ay kuugu noqoto aadna ha u maaragtay alwaax yacni xoog ha ugu fidinin, cajiiniga kaa noqon wax kuusan oo maaragtay kaa noqon adi meel dhexa maasha allah tabaaraka allah. qiyaastaada adiga meel zaa'id qiyaastaada adiga ku maaragtay ku maaray maasha allah biidsada. haddana saxankeen soo diyaarsaday meeshaasaan dhiganayaa, waa soo diyaari waaye zaa'idna uma fidinin, waana kala bixiye waa ujeedaan. alaab yaroo buush buusho inamaan caadi ahayn kasoo baxday, anaa idin soo tijaabiyey maasha allah. idinkana waxaan rajeynaya inaad soo tijaabisiin kana faa'iidaysatiin maasha allah tabaaraka allah. asxaabtayda qaaligaa soo dhawaada, meel walba aad joogtiin soo dhawaada, ka faa'iidaysi wanaagsan maasha allah. biidsadan cawada aan idiin wado. haddana maanta haddana waxaan ku darsanayaa sooski waaye, yaanyadii aan soo samaystaan ka wada sooska, waayo markaasaa isugu hagaajisid oo isugu soo karisid soos waaye. suugo soomaaligana waxaa la suugo, marka suugada le waaye. haddana maasha allah suugadeeniyan kusoo saas ugu soo wareejinayaa si dheecaanka oo suugada inuu dhinac kasta ka gaaro biidsada. yaanyada kow ku hormarinaysaa, jiiskana oo u dambeysiinayna, qudaartana dhexdan gelinaya insha allahu tacaala, iyo hilibka oo qafiif qafiifkaaba. hadda marka suugadii waa kusoo dhameeyey, waxa inoo xigi doono waxa waaye waa hilibka insha allah soo saaraya. hilibkan hilib qafiif zaa'id waaye, marka maasha allah haddii aan dubtidne maasha allah wuxuu noqonayaa kaala arag qababac yariis oo macaan oo dhanaan uu noqon oo isku imaanaya hadhowdii. hadda soo fidsan yahay hadhow markuu dumo wax yar oo isku imaanayo noqonaa, laakiin aad u macaan maasha allah. waxaan rajeynayaa inaad biidsadan ka heli doontiin biidnillaah. komadka igu reeba insha allah inta soo tijaabiso oo maarad ka hesho insha allah tacaala. maasha allah asxaabtiina kuwa inagu cusubna soo dhawaada, kuwa kalena usii sheer garay insha allah. asxaabihiina la wadaaga insha allah, waayo adduunkan waxa waaye in laysku faa'iideeyo unbaa maaragtay loo wada joogaa. walaalkaa wuxuuna aqoon inaa u faa'iidaysid waaye. maasha allah sida mar walba loo faa'iido annaga naftirkeena waan faa'iidnaa, so idinkana faa'iida insha allahu tacaala. intaan garanaynin inta garanaysana maasha allah wayba taqaanaaba. barbaroonigan ku daraa haddana, yaanyadii aan ku kor firdhinaya insha allah. waxaan rajeynayaa inaan dhaqso isku boofsiisa cajalada aad iigu fogaanin, idinkana simbal maaragtay si dhaqsaa looga faa'iidiin. haddana waxaan ku shubay olyoliifta, wax kasta oo qudaar oo adiga aad jecesha oo haysatid ayaad toobin uga dhigi kartaa, dul saaran kartaa biidsada markaa sameynaysid insha allah. kelimaan oo intaan keliya wax allaali waxaa rabtid ayaa biidsada saaran kartaa. chicken maaragtay hilib yaryariis aa u jirtid, anything wax walba way geli karaan maasha allah. is how you like, sida hartina u samaysan kartaa, laakiin muhiimadda waxaa waaye inaa cajiinkaas uu kuu hagaago iyo inaad maaragtay aad jiiskaas haysatid. qudaartan waxa waaye adiga dooqanaysid, kaa jeceshahayna waa ku ridanay, kii aad neceb tahayna waa ka reebanaya. biidsadeena saasay diyaar noogu tahay hadda maasha allah tabaaraka allah. so beautiful, so macaan, kaale iska arag, soo tijaabi idinkaa maasha allah ka shekeyn doontiin. aan ku dhafaarahan casho so quickly waa waqti badan markaa qaadanayso, ugu yaraan hal saac xataa ma dhammaan malaynaa 45 daqiiqo
wayba diyaaray kuugu noqonaysaa. adiga haddaad isku dheeraysid 1 saac waa kuugu diyaar qadadaada ama cashadaada. maasha allah tabaarakallah. haddana ovenka shidana. ovenka aniga 250 aan geeyey wuuna iisii shidnay muddo 10 daqiiqo camal waayo waxaan rabaa inaan ku kariyo 15 daqiiqo camal. marka ovenka iska sii kululeyso mar walba markaa wax ku sameynaysid si aad soo diyaarsan uu u galo. maasha allah biisadeena waa batanaaba. waaw caadi maahan aan ku dhahay. maasha allah tabaarakallah. soo tijaabiyaan ku dhahay. waan tijaabiyey wax ka macaan ma lahan. kaaliska arag haddaad rabtid wax badan intaad samaysid aad maaragta farinjeerka meesha barafka gashan kartaa haddaad waqti haynin. maasha allah waqtigaa rabtiin aad soo baxsan kartiin, kululeysan kartiin, cuni kartiin ama freshka ku cuni kartiin. maasha allah tabaarakallah. waxaan kaloon sameeyey in lagu cuno aniga kabaabkaanaan sameeyey. chicken kabaab waaye, shiish kabaab chicken aan ka sameeyey. insha allah mar kaleetaan hadduu ilaah yiraahdo idinla wadaagaya asxaabtayda qaaliga. subscribe-ka iyo like iyo share-ka haynaga bakhiilanina. soo dhawaada insha allah mar kaleetaan hadduu ilaah yiraahdo idinla wadaagi doona shiish kabaabkan quruxda badan macaanta badan. assalaamu calaykum. subscribe gambaleelka furo, like it videoga ka heshid asxaabtaadane usii sheer gareey.